English vocabulary, English new words, empower, give confidence or authority, enhance, improving quality, establish, set up family or other things, or other things, other things. Excellent, outstanding quality, outstanding quality. Expand, to make larger. Facilitate, make easier. Foster, to encourage growth. Generate, to create or produce. Implement, to put into action. Innovate, to introduce new idea. Inspire, to motivate deeply. Integrate, to combine effectively. English new words. It's another important things that we are going to learn. English new words. Empower, give confidence or authority for another person. Enhance, to improve in quality. Establish, to set up a family or other things. Excellent, to outstanding quality, outstanding quality. Expand, to make larger. Facilitate, to make easier. To foster, to encourage growth. Generate, to create or produce. Implement, to put into action. Innovate, to produce new idea. To inspire, motivate deeply. To integrate, combine effectively. English new words. English new words. Erayo cusub oo English. Empower, give confidence or authority. Empower waa xoojin ama awoodsiin ama xoojin. Sababtoo awoodsiin ama xoojin maxaa la dhihi karaa qofka inaad soo dhisto garaadkiisa iyo aqoontiisa iyo farsamadiisa. Give a confidence, see confidence waxa weeye kalsooni. Give a confidence, see kalsooni or authority ama awood uu isagu ku xadido ama ku controlo waxa uu qabanayo. Enhance, improve in quality. Enhance waxay noqonaysaa af Soomaali inaad hormariso tayada shayga ama qofka. Tusaale, shay tayadiisa si la horumarin. Sababtoo ah dadka wax design gareeya ama wax abuura waxay sameeyaan shaygii taleefanka tayo fiican inay keenaan. So improve. Haddii maanta aad soo saari jirtay maalintii 10 kiilo ka hor haddaad 20 ka dhigto waa horumarin ama horsocod. Enhance, improve in quality. Tayadii ood kordhiso ay noqonaysa. Establish, bilaabid ama abuurid. Set up a family. Nin ayaa iskaabulaha waana keligii reer ayuu abuuray. Reer abuuray maxaa laga wadaa? Wuu guursaday islaan keligii baa xaaskiisa ku soo biirtay, then ilmaha ku soo biiray. Maxay noqdeen? Family. Waxaan sameeyay reer baan sameeyay inta badan waa dhahnaa or other things ama wax kalaba. Aqoon fiican aan sameeyay, dhaqaale fiican aan sameeyay. Set up, bilaabid, abuurid. Excellent, wanaagsan. Outstanding quality, tayo muuqata ood samaysay noqonaysa. You make an excellent, haddii la dhaho it is an outstanding quality. Waa tayo gadaal soo aqri. Tayo muuqata, outstanding quality. Expand, ballaarin ama fidin. To make larger, inaad ka dhigto wixii hore wax ka weyn. To make larger. Expand, fidin ama ballaarin. We need to expand our governance. Waxaan rabnaa dowladnimadeenada inaan fidino. Expand, fidin. To make larger, intii hore wax ka ballaarin inaad samayso cabir ahaan. Foster, xoojin
encourage to growth ku dhiirigeli si uu u koro. Tusaalahan oo kale cunugaaga yar ee iskuulka dhigta ama dugsiga quraanka dhigta oo kale haddaad isku dayda inaad maskaxdiisa koriso waxaad samayn kartaa inaad cashirkii la akhrido, la diyaariso, tabaha ugu fiican aad barto. An example haddii loo diro haddii maalinka uu samayn jiro oo kale hal bog oo quraan uu ka bixi jiray half ka bixi jiray bog haddaa ka dhigto okay. Waa korin inaad foster encouraging to growth inaad ku dhiirigeliso inuu heerkuu joogay ka kor uga soo generate soo saarid ama abuurid ama soo saarid generate maalinkii dakhli ganacsadaha tahay maalinkii dakhli aan waxaa dhalin jirtay 500 sagaalaad ka dhigtay maxaad ku dartay 2 ama 3 so create or produce maalinka waxaad soo saari jirtay andano 10 shay ood gacantaada ku samayn jirtay soo 15 haddaad ka dhigto create generate weli dhaqaalaha ereygan loo adeegsadaa generate create or produce inaad abuurto ama soo saarto. waxaan abuuray ila dhaqaale waxaan soo saaraa dhaqaale. Implement hirgelin implement to put into action waa tallaabo aad niyad ahaan u qaadatay laakiin aad ficil u beddeshay shay. tusaalaha waxaad qorshaysad implement waa hirgelin, taabagelin, dhaqangelin andano dakhli baad soo heshay qorshaad bilowday waa inaad ficil u beddeshaa. To introduce to put into action inaad ficil u beddesho qorshahaagii inaad ficil u beddesho. Innovate hal abuur to produce a new idea inaad soo saarto aragti iyo fikrad cusub. Introduce new idea. Innovate the innovators hal abuurayaasha. You are good innovators waxaa tahay hal abuur wanaagsan. He has a good innovation wuxuu leeyahay hal abuur wanaagsan. So innovate maxay noqotay introduce new idea inaad soo kordhiso ama soo saarto aragti cusub ama wax cusub. Inspire ayaduna tanay ka agdhowda encourage to inspire to motivate dhiirigelin ama promotion kor u qaadid. Deeply si qoto dheer. Integrate isdhexgal ama isku dar. Integrate combination effectively isdhexgal xoog leh. Integrate cultural integration ama maqlaysaa meelaha qaar dhaqan isdhexgalka dhaqanka ama isdhexgalka diimaha inkastoo qaarkood ayna fiicnayn laakiin haddaad meel ka tagto meel kala tagto waxaa ku wanaagsan inaad qiimayso dhaqanka meesha ka jira. Integrate isdhexgal. Empower waxaan dhahnay waa awoodsiin. Give a confidence or authority siin kalsooni siin ama awood buuxda oo control siin inuu awood u yeesho qofkii inuu wixii controlo si kalsooni leh. So empower give confidence or authority. Empowerment ama xoogsiinta waxay abuurtaa in qofkii uu kalsooni helo kadibna control buuxa uu isagu shay ku sameeyo. Enhance improve quality. To enhance waa inaad wixii halku taagnaa horaga si kasii wanaajisa kasii fiicnayso so inaad horumar tayo la samayso. Establish set up a family. To establish abuurid ama aas-aasid set up a family waxaan aasaasay qoys or other things ama shay kale waa u adeegsan karta. Excellent wanaagsan waxa ugu wanaagsan. Excellent maxaa la mid ah outstanding quality tayo muuqata. To make a larger. Expand maxay noqotay to make a larger. Facilitate make easier haddii at least diyaarin jirtay ood ku qori jirtay qalin ka hor haddii computer lagu siiyo you facilitated waxaa la siiyey to make easier si ka fudud sidii hore inuu qabto shaqadii. Facilitate make easier si waxay la macno tahay facilitate waxa weeye iyadana kobcin
to make easier si aad u samayso wixii sidii hore si ka fudud. Foster xoojin or encourage ama dhiirigelin to growth. So ereygan foster wuxuu la macno yahay dhiirigelin shaygii si aad u koriso ama u horumariso. Foster xoojin, encourage dhiirigelin, growth to. Okay. Generate, create or produce. Abuurid ama soo saarid. Generate waxaan tusaale u soo qaadanay dakhli ama dhaqaale samayn. He generated or he created or he produced more money this year. Sanadkan kolkii la barbar dhigo sanadkii hore, sanadkan ayuu dhaqaale badan soo saaray. Implement, taabagelin ama dhaqangelin ayaynu put into action inaad u beddesho, qorshe dejiso, kadibna ficil u beddesho. aad bay noogu yartahay innaga. Qof waxaad arkaysaa shaqo inuu qabto raba laakiin wax qorshe aan lahayn. So this one implementing, to put into action inaad qorshahaagii ficil u beddesho. Innovate, hal abuur, to introduce new idea. Inspire, motivate deeply. To inspire means waxay noqonaysaa to motivate, promotion ama dalacitaan kor inaad uga sii socoto, si xoog leh inaad kor ugu socoto. Integrate, isku dar, combine waa isku darid, effectively. Integrate, cultural integration aan soo qaadanay tusaale, isdhexgalka dhaqanka, isdhexgalka bulshada. Integrate, combination, effectively waa isdhexgal xoog leh. Soo ereyadani waa ereyada cusub, kuwana waa macnaha u dhigma ee lagu fasiri karo. So intaas agdeelna. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.